نرجع أو بقولها أظن نرجع أو هرت بقولها إن بحكي شيفته وحبي أذكر شيء غير كيس كور دارت وأخلاقهم انقرض الله وبالله والله هذا قبت غير كذا يسوق رعينيه ugu dambeyn waxay hodan cabdiraxmaan ku damaashaada guurkii mursal muuse iskagana digato qadra silimo oo ay ku madadaaleysato waxaa iminka godkeedii ugu soo gala biyo kadib markii ninkeedii hore ee fanaanka lagu magacaabo maxamed aalta uu la aqal galay fanaanada hobalka ah ee sida weyn caanka uga ah dhammaan geyiga Soomaalida ee King Jaamac haddaba labadan fanaan ee King Jaamac iyo sidoo kale maxamed aalto ayaa ismehersaday waxa ay hodan cabdiraxmaan muuqaal ay soo dhigtay barteeda Snapchat ah ku sheegtay arrimo badan oo xasaasi ah iyadoo afka furatay haddaba barnaamijkan waxa aynu ku soo qaadan doonaa hadaladii kulkulaa oo ay hodan cabdiraxmaan ka gudbisay meherka labadan fanaan iyo sidoo kale Snapchat ay sheegtay in mar walba laga soo caayay jiray iyadoo markaasi qarinayso hase yeeshee ay sida muuqata ku tilmaamayso in fanaanka maxamed aalta iyo rag kale oo asxaabtiisa ahi ay ka dambeeyaan arrinkan haddaba hodan cabdiraxmaan ayaa sheegtay in Snapchat-kaas lagu caayay jiray dadka familkeeda ah iyo dadka asxaabta ay ahaayeen oo Mareykanka kula nool qofka kaliya oo sameynayeen oo ahaa qof iyada u dhow haddaba qofkaasi uu noqon karaa isla maxamed aalta ay kala jeedaaye haddaba barnaamijkan ayaynu ku eegi doonaa waxyaabo badan oo ku saabsan arrinkaasi inta aan u gelin warbixintan oo dhameystiran haddii ay tahay booqashadaadii ugu horeeyay ee janaalkeena fadlan ha ilaabina subscribe saarata si ayna kuu dhaafin muuqaalada iyo warbixinada halkan aan soo gelino haddaba sida aan horay idinkugu soo sheegay fanaanada hodan cabdiraxmaan ayaa afka furatay kadib guurka labada fanaan ee lamaanaha noqday ee dhawaan midoobay meherkooduna dhacay ee King Jaamac iyo sidoo kale fanaanka maxamed aalto haddaba hodan cabdiraxmaan ayaa meherka labadan fanaan waxa ay ka tiri hadallo aad u kulkulul sidoo kale waxa ay ku eedeysay inay ka dambeeyeen dacayad hore iyada looga faafin jiray baraha bulshada haddaba labadan fanaan maxamed aalta iyo sidoo kale King Jaamac ayaa dhawaan waxa ay soo wadaan hees talantaali ah waxayna keentay markii ay damceen in heestaasi wada sameeyaan in macaamil dhow ay sameeyaan taasoo ugu dambeyn sababtay in labadan fanaani ay xiriir wada yeeshaan ugu dambeynna maanta ay guuleysteen oo ay doonayaan in ay toos u aqal galaan haddaba yaanan warka idinku daalin waxaad la daawataan muuqaalka hodan cabdiraxmaan oo ay afka furatay iyadoo arrimo badan oo xasaasi ah ka dhawaajinayso waxayna qaybta hore ku sheegi doontaa sidii loo dacaayadeen jiray iyadoo qaybta dambena ku sheegayso in wixii lagu dhisaa marka horeba beenbeen ay gadaalna ka buri doonaan oo ay kala jeedo midowga King Jaamac iyo sidoo kale fanaanka maxamed aalta haddaba ila daawo muuqaalka hodan cabdiraxmaan السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وانا السلام يا خيارتيدا هرانو إلي والدين شاقين السوق لي لكن بيش لان سكتو بديبه مركز ولا الإلمة يريرية اللي نسائيسي معها كامل كان كقدبو مهمة دانا سوق لي وحوية السومالي سنة وانا ركي يوم مدور على تيكة تشوهابيسي ومرتانا نقوم ببادي أقوم ساسبابا من السور هاينبا مدى كلوحي السوماليكم محمد السحر السحر وحشيك سحر كدريها أظن تدعو زي الشيء كذا ماشي كسعتان وين نورتين تصور حكشان أما أذكر جوابته أما دي أنا هولا هذه ولا هنا تصور كشان تأد الغير ونفسية وبسيمة هالبلاس يستعمل سمعنا ترى تين حبستها وحول بكورية إن سمعنا لينا الملاقس كودا دي إنه والبابا قفكوا يهي ماشي كسر شيء سفي عم نسودا مقانا ما نقرأتها إن ها كسر قد برتقفها سنة شيكون هنا هذا وقف هذا مرحبا طلبات اوكي وركان كسو قدو سومالي waxay tiri nin durbaanta tiilaa dalbi man karateen horta Soomaali qofkii magac u leh ya horta ay aflagaada iyo deesaasa leeyay horta inta horta hadal bad kama bajiraba maalin iyo habeen iyo dhariir leel bal soo qaadaya hadana Soomaali bay u siinahay dalishi iyo de iyo caydaba taan ka soo gudubno laakiin qofka marka si shakhsiyan isku taqaanaan hebel iyo heblaay soo garanaysan magaalada degantihiin istoleysataan qofku inaad ku yiraahdo inaad ixtiraahdo ya oo sidii dad family aad inaad ixtiraamto madaxaaga hoos ka geysid oo aad walaal isla tahay leedihiin qofkaas aad ku khaldamo oo intuu snap ku furto snap inta la furto snap kana aan qof kale laga caynay dadka aad sida qoonta saxda ah u leedahay caayda ka waran anigu Soomaali snap tay awal kor waliisa tagaray jira waxa ay ka hadlayno kurba bay ugu bixin jirinba والله لكن قف اوكي وحي دي ادادي قفك بني ادم ka horta ku oranayso waxa sharaf iyo cusub ku jirta ama qofka aqoon dheeraad isku leedahay
dee aad kasoo meeraysato. waxaa kaloo rabaa inaad taabto waxaa la yidhi qofka bini aadan horta nin walbaaba intuu cunuu cayn taabeen maqli jiray caqliga ilaahayna dadka u kala dhaliya nin raga oo boqolla ah adoo nin raga oo horta boqolla inaad wax ka sheegto waxba aad ka sheegta reerkiisa ka warata horta waa akhlaaq xumo ma garatay oo dad aan eed iyo dhaliil toona lahayn in horta dhaliil loo yeeshaa nin ragood cunto la cunayso horta aad ku hortaagan waxaad odhan weyday inaad isnaab magac kale aad u samaysato yaa wad wax ka sheegtaana waa nasiib darorta dhankeeda taalaan leey inamada Soomaali isnaab iskale labada nin ee aniga horta si khaas ah la igu sheegay labaduba personal ninkii u yaqaaneen cish la cunayeen bay markaa sida aqan wax ka sheegeen ay raganimo iyagoo hortaagan wax ku odhan waayay caleeg waxa kaloo igu qosliya horta markaa ilaahay boqolla ka dhigay uu ku karaameeyay yaa nin rago boqolla horta inta soo noqoto isku sameeynaysa iyo gabadh dumar ah oo aqoon u leedahay yaa oo qoys iyo reer leh saaxiib oo 60 tashatay 60 yaa inaad markii lagu weydiiyo xataa lagu su'aalana waxyaabaha qofka ku hadla shorta nasiib daran ku arkaaday nin weyn baatay cimrigu kuma yaro wallaahi anigu walibana labada nin baan aad u sii yaqaanaday cimrigu kuma yaro wallaahi aad iyo aad horta kugu xishooday mana rabo inaan magacaaga halkan ka sheego haddaan magacaaga halkan ka sheego bille iyo tale yaa tacabkaaga khasaaraya wuxuu tacabkaaga ku khasaaraya adiyaan wayna samqaana oo meel baynu ka wada nimid meel yaa isku xaaraynu ka wada nimid dad kale Soomaali qabiil dadkii lahaa Soomaali qabiil male Soomaali snaps qabiil male wala Soomaali snaps isku haysto maxaad qabiil ka noqotay isku haysto Soomaalida waa baabi cid tawa taqaana qabiil kana in la isku gartaa wanaagsan laakiin in lagu dhaqmaayo ma garat inaad qof kaaga xiga aad ogaato diinta sheegaysa laakiin inaad qof bini aadan kula dhaqanta ama qabiilkaas ku dhaqanta ma garat quraanka inaa sheegay hadaan quraanka garanin dib inta ugu noqoto soo ku dhaqanka qabiilada nimci ma garat laakiin qofkaaga qofku yahay ee adigu qofka aad tahay iyo qofka saad isku dhowdiin dadka ka ogaataan mid kale de wabinu isnaqana Soomaaliyeeyo qof adiga oo Soomaaliya horta haba oran qabiil iyo kan haba oran dad is yaqaanana dhexdooda kuma qaad dadkan iyo anagu waan isnaqana ma garatay taana taasan ka ugu beeyay oo qoftu marayna ku fogaado ma rabo qofku kugu amaanay inuu bari sida kugu mudsan doonana ha sugi waayay ma garatay anigu qoftu maro oo la caayay totally ma ta ugu xuwalato ugu wanaagsan totally ba qoftu maray in la caayana ma qalay xeerka dumarnimada ana dhigaysa ma garatay Soomaali snaab la xadiisi laga ma hadli jirin walaal maalin walba gabadh baa lagu haysto lagu kidfay waxaan hadalka ku soo koobaya walaal telefoon iga soo galayo snaabiyaal iga soo wacayo hadalkan waxa lagu leeyahay waxa ku xid marka horta wad salaamantiin intii aan rabto inaan idin sheego waa inta ma garatay waxaan leeyahay dadku isku bijireen mid kamid ah waxaan leeyahay awood baan leeyahay magacaaga sheego iyo asalka iyo abnaqa inaan sheego awood baan leeyahay laakiin still waxbaan xeerinaya ma garatay laayo billahi wa tallahi taad qabto reerkooda ay soo garaaceen iyo taad qabto ya dad ay la dhalatay bay soo garaaceen iyagan xeerinaya iyaga wanaajinaya ma fahanti ee adu wanaag ma lihid insha Allah biidni Ilaahi kariimna adii anigu hadaynu nool lahayn ya waynu sarkeena wala والله يسأركي والله يسكسو هربحي مركز هاي نوع هاتو ما تقرأتي بدي خلا عقلي أبغى الشقية أيام الضيق عقلي أبغى الشقية وظقف وين تحيدي والمرام بعتها ما تقرأت حق مخرب على الهضامية وبالله توفيق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرضى السلام يا حادث كده إذا نرونا كفر أحلام حمان تتكلف فقاتان بالشيشة بعين بالوجه رمضان بسوق ريسا ما وقت العبادة استوردوا وقت إلهي الدنيا دنيا لا بولا جب سكت شفتوا واحد صعد وشيء ده أنت تبلط عايزته يا تكبير هذا ككون مشغول كله تكبير هذا ككون مشغول كله
دنيهنا هذين دام دنيهنا والله العظيم إلهينا وروحه قرآن كيسو كشيغنا waxaan rajeynayaa inaad daawatay muuqaalka Hodan Cabdiraxmaan oo aad dhameystiratay haddaba fanaanadan ayaa ka dhawaajida arrimo badan oo culus waxayna sheegtay in si weyn snaabka looga caayi jiray dadka isqarqari jireen ay ku eedeysay inay ka dambeeyeen dad ayadu sheegtay inay aad iskaga dhawaayeen oo ay kala jeedo fanaanka Maxamed Aalta iyo sidoo kale dad kale oo ay magacyadeeda qariday haddaba arrintan ayaa waxa isku bedelaysaa mid fadeexad ah waxa aynu leenahay arrintan heshiis lagu soo dabaalo oo maanta ha noqoto midii ugu dambeeyay oo xal laga gaari lahaa maadaama ay soo noqnoqotay in fanaanintu arrimaha noocan oo kala ay isku qabsadaan oo ay dhacdo fanaan qof uu xariir la lahaa in laga dul qaado oo ay mid kale xariir la sameeyo arrintan ayaana ku soo badanaysa fanaaninta Soomaaliyeed waxaana leenahay fanaankii asoo qalad galaa ugu dambeynna isaga ay ku soo laaban doontaa haddaba warbixintani halkan ayaa ku soo koobi doona haddii ay tahay booqashadaadii ugu horeeyay ee janaalkeena fadlan ha ilaabin inaad subscribe saarato si ayna kuu dhaafin muuqaalada iyo warbixinada halkan aan soo gelino